iyadoo loo eegaya xasuuqa joogtada ah ee ay geysanayaan ciidamada gumaysiga. dhakhaatiirta iyo kalkaaliyaasha caafimaadka ee isbitaalka marinka Gaza ayaa saacad walba ku shaqeeya xaalado aad u adag, sida uu muujiyey mid ka mid ah dhakhaatiirta dhaawacantay. dhakhaatiirtan iyo shaqaalaha gurmadka degdega ah ayaa maalin kasta boqolaal qof oo dhaawac ah ka soo gaaray xasuuqa joogtada ah ee ay geysanayaan ciidamada gumaysiga Israa'iil ee ay ka kala geysteen xaafado kala duwan oo ka tirsan marinka Gaza. mid ka mid ah dhakhaatiirta dhaawacantay ayaa sheegay muuqaal laga sii daayay Al Jazeera in xaaladaha degdega ah ee soo gaara marka hore la qiimeeyo, kadibna haddii kiisaska fudud yihiinna loo wareejiyo waaxaha kale ee kala duwan ee caafimaadka. waxaa xusid mudan in duqaymaha Israa'iil ay weli ka socto deegaano dhowr ah oo ka tirsan marinka Gaza, iyadoo ay ku dhinteen dad badan kadib xasuuqii foosha xumaa ee ka dhacay magaalada Jabaliya, kaasoo ay ku nafwaayeen 400 oo qof oo rayd ah kuna dhaawacmeen. shalay maqrinimadii ilaa iminka tirada guud ee dadka ku dhintay ayaa gaartay 8525 oo ay ku jiraan waxaa ku jira 3542 carruur iyo 2187 haween ah. ra'iisul wasaaraha Scotland Hamza Yusuf ayaa cambaaray xasuuqii ay ciidamada gumaysiga Israa'iil shalay ka geysteen xerada qaxootiga ee Jabaliya ee waqooyiga marinka Gaza, kaasoo sababay dhimashada iyo dhaawacyo boqolaal Falastiiniyiin ah. Yusuf ayaa qoraal uu Twitterka soo dhigay ku sheegay, waan ka xumahay haweenka iyo carruurta aan waxba galabsan ee ku jira xerada qaxootiga ee Jabaliya, isla markaana xasuuq loogu daray, sababtoo ah dunidu maanta waxba idin ma tari karto. wuxuu ku baaqay in si aan leexleexad lahayn loo cambaareeyo ixtiraam la'aanta qaawan ee lagu hayo nolosha bini'aadamka, isagoo carabka ku adkeeyey baahida loo qabo xabad joojin degdeg ah. waxa uu qoraalkiisa ku soo lifaaqay sawir muujinaya burburkii ka dhashay qaraxii ka dhacay xerada Jabaliya, iyadoo shacabka iyo kooxaha gurmadka ay ku hawlan yihiin sidii ay u soo saari lahaayeen dhaawacyada iyo meydadka. waxa uu intaa ku daray, ha u oggolaanin carruur badan inay dhintaan, waxaan u baahannahay xabad joojin degdeg ah. waxaa xusid mudan in waalidiinta xaaska ra'iisul wasaaraha Scotland ay weli ku xayiran yihiin marinka Gaza, halkaasoo ay u tageen inay booqdaan mid ka mid ah eheladooda ka hor inta uusan bilaaban howlgalka daadadka Al Aqsa, kaasoo ay iska caabin ku bilaabeen deegaanada ku xeeran Gaza bishii 7 ee Oktoobar. la soco isha ku hay barnaamijka raadka dhacdooyinka oo alaaba aan uga hadalno barnaamijyada arrimaha dibadda, gaar ahaan xaaladda bariga dhexe.